wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqo raadis qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah TPLF oo la xaqiijiyey inay dib uga soo baxday ama laga soo saaray badi deegaanada iyo magaalooyinka Wallo iyo xogtii u dambeysay ee dagaalka TPLF iyo ciidanka Itoobiya waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka khilaafka dhex qarxay xukuumadda Itoobiya iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo xukuumadda Tigreega oo afka furatay oo qayladhaan haatan u diratay caalamka iyaga oo sheegay oo yidhi ciidankii Eritrea ayaa farabaas ku haya gudaha Tigreega hana laga soo gaadho qodobada iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada hagaag aynu ku bilowno barnaamijka iyadoo aynu ognahay in TPLF-tu toddobaadyadii hore ee dagaalka ay markaasi xoog iyo farabaas ay ku haysay deegaanada qowmiyadda Axmaarada gaar ahaan Wallo iyadoo oo markaa deegaano badan si istaba joog u qabsanaysay oo markaa duleedka Waldiya ay joogto ayaa ugu dambeysay dadka haddaba haatan waxaa la sheegayaa in haatan ciidamadii Tigreega laga soo saaray badi deegaanadii Wallo ama qowmiyadda Axmaarada qaybta Wallaha kuwaasi oo haatan la sheegay deegaanada laga soo saaray ee TPLF hore u qabsatay inay ka mid yihiin Gobye, Koborobit iyo markaasi dhinaca Waagaximra oo laga soo saaray Sikota haddaba haatan waxaa la sheegayaa dagaalka ugu xoogan in uu ka socdo Kobo oo markaa dib loo riixayay baa la yidhi ciidamadii TPLF-ta taasi waxa xaqiijin kara sida oo kale haatan TPLF-tu ma sheegayso meel kale oo ay qabsatay oo deegaanka qowmiyadda Axmaarada ka mid ah waxaana warbaahinta taageerta qaarkood ay sheegayaan in ay jirto marka in ka soo baxeen deegaanadaasi iyagoo ku tilmaamay dib u gurasho xeelad dagaal taasi oo haatan ay ku macneeyeen in xaggii dambe ay ka soo weerareen markaasi gobolka Tigreega ciidanka Eritrea darteedna ay Eritrea iska difaacayaan sidoo kale waxay ku doodayaan warbaahinta taageerta TPLF-tu in haatan ay u markaasi janjeerseen ama ay u wacdeen ay xoogga saarayaan sidii ay u qabsan lahaayeen magaalada istaraatiijiga ah ee Humera barnaamijkayga hore sidaad ku maqlayseen warbaahinta TPLF-ta qaarkood ayaa waxay sheeganayaan in Humera ay ka qabsadeen dhinaca Suudaan ay ka soo gashay TPLF-ta Suudaan markaasi ku sugan taasi oo haatan la sheegay airportkii markaa Humera ay sheeganayeen inay qabsadeen haddaba si kasta ha ahaatee waxay haatan TPLF ay ku doodaysaa oo ay leeyihiin deegaanada markaasi Axmaarada ee Wallo muhiimadda ma saarayna ee galbeedka Tigreega ayay markaasi focuska saarayaan haddaba sida oo kale waxa la sheegaya dagaalo xooggan inay ka socdaan deegaanka Daabid ee markaasi dhinaca webiga Tasek agtiisa halkaasi oo moogtahay dagaalo xooggan ay ka socdaan oo la sheegay ciidamada Itoobiya in dhinaca galbeedka Tigreega ama Walqaayad ay ka soo tallaabeen iyadoo haatan la sheegay dagaalka u qaraadhay halkaa inuu iyadana ka socdo haddaba si kasta ha ahaatee dagaaladu haatan si istaba jooga ayay u socdaan waxaana u eegtahay markaa in TPLF dib loo riixay ama la jabiyey oo laga guuleystay iyagu laakiinse waxay ku macnaynayaan oo leeyihiin waa dib u gurasho xeelad dagaal waxaanay sheegeen haatan oo eedda ay dusha uga saarayaan dhinaca Eritrea oo ay leeyihiin dowladda Eritrea ayaa ku soo duushay Tigreegi oo gam ka dhigtay haddaba waxaa mar dhowey toole iyaguna hadlay madaxda Tigreega oo qayladhaan u dirsaday beesha caalamka waxaana haatan ay sheegayaan markaa madaxda Tigreegu in ay Eritrea ciidankeedii ay afarta dhinac ka soo gashay markaasi gobolka Tigreega waxaana sheegeen in deegaanada ugu daran ee haatan ay gudaha u soo galeen ee ay gam ka dhigeen inay ka mid yihiin deegaanada Shiraaro iyo Adigrat ama Adigrat qofba sidoo yaqaan kuwaasi oo haatan ay sheegayaan markaa in ay duqeyn xoogan ay ku hayaan ciidamada Eritrea sida oo kale ay cagta mariyeen bay yiraahdeen markaa ciidamada Eritrea dadkii shacabka aagaa ku sugnaa waxaana sheegayaan markaa haatan ku doodayaan madaxda Tigreegu in markii hore ciidamada Itoobiya ay iska celiyeen iyagoo markaasi haatan ay ka guuleysanayaan markaa ay u soo gurmadeen ciidamada Eritreaanku sida oo kale waxay sheegayaan markaa ciidamada Eritrea laftirkoodu soo duulay waxay leeyihiin waan iska caabinay ilaa haatan iska caabinta ayaa socota ayay ku doodayaan saa darteed beesha caalamka waxay ka dalbanayaan inta aanay ka awood badan maadaama uu Eritrea ay tahay wadan dhan Itoobiyana ciidankeedii oo dhan ay wadato laba wadan ba isku kale tagay bi haatan aaminsan yihiin gobolka Tigreega saasay ku doodayaan beesha caalamka waxay ka codsadeen markaa in si dhaqso ah looga qabto Eritrea
haddaba wadamada markaasi iyagu haatan taageera dhinaca tigreega ee reer galbeedka ayaa haatan waxay dabada ka riixayaan baa layidhi qaramada midoobay golaha ammaanku inuu kulan degdeg ah ka yeesho xaaladda tigreega iyadoo khamiistii la filayay markaa in la qabto shirka degdega ah ama emergency-ga ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qabsanayo ayaa la sheegay markaa in is-afgaraanshawa ka dhex jira qolyaha ku sugan gaar ahaan 5 qaramada midoobay ka tirsan ee golaha ammaanka ee rigliga ah ayaa dhexdooda khilaafad dilaacay baa layidhi 3 waa reer galbeed oo waa Maraykan, Ingiriis iyo Faransiis, laakiin labada kale ee Ruushka iyo China ayaa dhinaca Ethiopia iyagu raacsan. waxaa la sheegay in la isku afgaran waayay khamiistii shirka in la qabto, laakiin haatan Isniinta ayaa markaa shirka la qabanayaa baa layidhi si markaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu go'aan degdeg uga qaato markaa tallaabada laga qaadayo Ethiopia iyo Eritrea. laakiinse dadka siyaasadda falaqaya waxay sheegayaan labada wadan ee Ruushka iyo markaasi China oo ay sidooduba reer galbeedka isku kacsan yihiin ayaa haatan moogtahay Ethiopia iyo Eritrea iyaguna waxay taageersan yihiin markaa Ruushka iyo China labada wadan. marka qaraar kasta oo la keeno waa ay markaasi qaadacayaan bay dadka qaar sii aaminsan yihiin waxba ma taraysa bay leeyihiin kulanka ay golaha ammaanka qaramada midoobay yeelanayaan, waayo dee iyagiibaaba heshiis ahayn moogtahay golaha ammaanka qaramada midoobay 5 wadan ee ku jiray oo laba dhinac ayay moogtahay yihiin, 3na waa dhinac. sidaa darteed xurgufta moogta iyo dagaalka saddexaad ee caalamka ee haatan inuu bilaabmo laga yaabo ama bilaabmayba ayaa saameyn ku yeelanaya go'aanadii qaramada midoobay. marka waxba sooma kordhinaya dadka qaar aaminsan yihiin. aduu si kasta ha ahaatee haatan waxa ay markaasi tigreegunu qayladhaan ay u dirsanayaan beesha caalamka oo ay leeyihiin weliba wadamada saaxiibkiina reer galbeedku inay degdeg markaasi uga soo gaadhaan oo ciidanka Eritrea halanaga qabta bay leeyihiin. waxay ku doodaysaa TPLF ay leedahay TPLF waxay sheegaysaa in ay la dagaalami karto ciidanka Ethiopia oo dee ay kun soo qabanayso moogta sida maalmihii dhawadan arkaynay 5,000 iyo 4,000 moogta u qabanayaan. marka laakiin kuwa nafta u keenay waa ciidanka Eritrea bay leeyihiin darteedna laga soo gaaro ayay ku doodayaan. marka haddaba cidii ka soo gaari lahaydna waa qaramada midoobay iyadii baan heshiis ahayn baa la leeyahay. haddaba si kasta ha ahaatee guddiga xuquuqul insaanka ee markaa qaramada midoobay soo magacawday iyo markaa xukuumadda Ethiopia ayaa haatan jiq isku ah. bayaan ay soo saareen guddiga caalamiga ah ee khubarada xuquuqul insaanka ee Ethiopia ayaa lagu sheegay in dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia uu yahay mid ku sii fidaya aagag horle, sida oo kalena ciidamada Eritrea ayaa ka qayb qaadanayaan baa yidhi dagaalka, waxaana uu halis ugu jiraa bay yidhahdeen in uu dagaalku ku fido dowlado kale ayaa lagu yidhi bayaanka. dhanka kale Ethiopia oo ka hadashay bayaankaasi ka soo baxay komishanka xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in Ethiopia ka xun tahay qoraalkaasi ka dhanka Ethiopia. bayaanka Ethiopia ayaa lagu yidhi komishanku ma laha karti ama qadarin ku habboon colaadda ay TPLF kicisay ee ay ku xadgudubtay marka xabad joojinta bini'aadantinimo. haddaba si kasta ha ahaatee waxaa iyaduna haatan jirta in markaa uu afka furtay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay oo uu yidhi kuwa cadowga noo ah uu yidhi waxay inaga hadhi karaan oo keliya markay awoodaheedna oo dhammaystiran ay arkaan. waxa uu sheegay markaa in haatan isku filaashaha xagga cuntada oo wuxuu yidhi qamaddigii aanu beeranay ayay ka mururo dilaaceen iyadoo oo wuxuu yidhi qamadiga nagu gumaysan jiray waa siduu hadalka u dhigaya. markay Ethiopia qamadi beerata ee horta ka xumaadee buu yidhi sida oo kale awoodda isdifaaca iyaga iyo inaan isku filannahay markay arkeen ayaa haatan ay sii mururo dilaaceen buu yidhi. waxaanu sheegay markaa isagoo farta ku fiiqay wadamada waa la isla garanaya ciduu la hadlayo moogtahay oo inta badan waa reer galbeedka la leeyahay. waxa uu yidhi markaa haatan tu kasta oo ay moogtahay faji kasta oo inoo dhigaan waanu ka tallaabsanaynaa awooddeeda buuxdo dhammaystiran markay arkaanna iyagaa dan iskaga hadhi doona buu yidhi. waa hagaag. haddaba ra-iisul wasaaruhu wuxuu haatan ku adkaysanayaa inaanu uga jimcinaynin oo uu sutida usii haynaya marka tallaabada adag ee uga qaaday nimanka TPLFta. reer galbeedkana wuxuu leeyahay marka qamadigiina iska haysta saasay hadalku u dhigantay qamadi waan haysanahay oo in badan buu moogta ku celceliyay ra-iisul wasaaruhu moogta ilaa sanadkii hore uu sheegay qamadiga yare wuxuu yidhi caawimaadka sadaqooyinka meelaha laga soo ururiyo ay noogu soo iibiyaan bay nagu gumaysanayaan sidaa darteed waanu beeranaynaa buu yidhi waa kii qamadi badan ay beerteen oo intaasoo tana ilaa haatan dadaalkii way wadaan baa la leeyahay. waxaanu sheegay in isku filaasho ay gaadhaysa Ethiopia. haddaba dhinaca kale wadamada reer galbeedku iyagoo si cad Ethiopia weerar baan ugu dhahay may odhan waxay had iyo jeer sheegaan inay dhex ka yihiin colaadda Ethiopia iyo moogtahay Tigreega
Mark Hammer waa ergeyga moogtay qaramada ergeyga uu soo magacaabay Mareykanku Ethiopia iyo Geeska Afrika ayaa haatan Addis Ababa ku sugan waxa uu wadaa dadaalo xooggan oo moogtay ugu gogol xaadhayo wada hadallo nabadeedna haatan way socdaan baa la yidhi oo si qarsoodi ayaa haatan bal inay heshiiyaan bal si uu u heshiiyaan ayaa Jabuuti lagu qabtay baa la yidhi marka wixii kasoo kordha barnaamijyada dambe kasoo qaadanaya barnaamijkan intaas ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo